bishii Shacbaan ee ka horeysay bisha Ramadaan waqti walba ee xilli walbana wuxuu leeyahay cibaadaad munaasab ah oo nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi ka sugan ama si guud ama si gaar ah bishan cibaadaad fara badan bilihii kale kula mid tahay laakiin nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa uu si gooniye ugu khaas yeeli jiray inuu soonka badiyo bishan inuu soonkeeda badiyo Aisha waxay leedahay radiyallahu ta'ala anhuma ma arkin nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo bisha Shacbaan soonka uu soomayo bil kale soomaya ma arkin soonka ugu badan ee sunnaha ah bisha Shacbaan buu nabi Muhammad soomi jiray bay tiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi xadiidka riwaayo kale oo tiisa waxay leedahay Aisha radiyallahu ta'ala anhuma nabigu bisha Shacbaan oo dhan waa wada soomi jiray riwaayo kalena waxay leedahay Shacbaan oo dhan buu soomi jiray in yar mooyee wax yar ayuu afuri jiray inteeda badanna waa soomi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiid kale oo Aisha ay warinayso sunnah Abi Daawud ku yimidna waxay leedahay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi bisha uu ugu jecel yahay inuu soomo Shacbaan bay ahaan jirtay soonka uu soomo yahay bisha Shacbaanna wuxuu ku xiriirin jiray soonka bisha Ramadaan caaday u ahayd nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka waxa haboon bishan in la badiyo soonka لأن سيدة النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه هذا أركته إسقى عبادة ملك خاص يليه أما وقت يدا كم إذا عبادة خاص يليه أما طول كمل كم إذا عبادة خاص يليه حلقة أما طول كاس عبادة علاقة خاصة كدحيس حكمة باكو جرت ما جرت وحلا إلى هذا شارعة الله تبارك وتعالى رسول كيس صلوات ربي والسلام عليه إني وقت عبادة إسلاف في رصدان أما مال بقعة عبادة إسلاف في رصدان وإسكت عضو حكمة الآن ما جرت حكمة باكو جرت وبيشن واحد لو صومي والنبي قصون كأوبدين جري صلوات ربي والسلام عليه حكمة باكو جرت حكمة قار كم إذا النبي قاتل المامي صلوات ربي والسلام عليه وعائشة وحي ويديس رسول الله بيشن محاد صون كأوبدي ساعة wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam bishani waa bil ay dadku moog yihiin oo halmaansan yihiin ilaahay cibaadadiisa laba bilood bay u dhaxaysaa bisha Rajab leeyda oo ashhurul hurum ka kamida afarta bilood ee xurmada leh goonida ah bay kamid tahay iyo bisha Ramadaan oo bishii soonka iyo cibaadaadka ah labada bilood oo bilaha xurmada leh kamid tahay midna ay bishii Ramadaan ba tahay labada bilood bay u dhaxaysaa dhexday ka baxda marka dadka badankood iyagoo moog oon kaba warhaynin oo cibaadada Ilaahay iyo taacadiisa halmaansan bay bishu dhaaftaa sidaas daraadeed baan soonkeeda u badinayaa buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maxay tilmaamaysaa waqtiga ay dadku cibaadaadka Ilaahay moog yihiin oo ama ka hurdaan ama ka sii jeedaan xilligaasoo kale ruuxa cibaadada Ilaahay ku mashquulo adoomada khilaafa oo ghaflada ay ku jiraan garam mara wuxuu leeyahay mudnaan khaas u leeyahay ajir siyaada abu leeyahay maxaa yeelay waa xilli la wada halmaansan yahay asaga ku baraarugsan oo dadkii ka dhaxbaxay وميدا كنتي نصوص فربضان إنه كتمادو أو ميلا كلا قدسان كتمد روحا حلقا نوعا سوكلاء عبادة إلهية تبارك وتعالى إن أجر سيادة لسي منان خاصة النبي وصية صلوات ربي والسلام عليه وعكمد مثلا أسباب تجند اللقوق النبي وحكمد دقى صلوات ربي والسلام عليه ضدكم مركي هردان هبينكي وعيد إلهي حسي سبا أي يرتهي
intaad hurdada ka soo kacdo inaad ilaahay xusto asbaabta jannada lagu galaa laga bidhigay laana waa xilli dadku ay halmaansan yihiin waxa kamida maalan nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu tilmaamay al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya markay fitna dhacdo way dadku islaynayaan oo kuraas iyo adduunyo iyo jago iyo dhul iyo balaayo la isku laynayo la mashquulo ilaahay cibaadadiisa iyo khayrkana laga kala tago la halmaamo adoonka xilliga cibaadaysanaya ee cibaadada ilaahay ku mashquulsan wuxuu la mid yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam sidii mid aniga ii soo hijrooday oo kale leesh لأنه وحل ضدكي أي آفئي بلايا قشوي فسادين انت عبادة إلهي كبرى ركسنا أي يرتهي وهكذا النصوص فربضان باكو إيمانيسا حل قال ليس هالمامو ضدكو سيحدان عبادة موجهين إن عبادة اللغو مشغوله أجر سيادة بيلاده تاوى قدبك كوبادو النبي كوحي صلى الله عليه وسلم صونك بشان بدين تو بدين شري علاد الله بادي وحي النبي كوحي صلى الله عليه وسلم وحي بشاني وبش أعماشا كور لوسي قادو الضوامدو وحي سمينيين سندك طاعاتك خيراتك وحي اللي سميني با كور لقيا وكور لوسي قادا ساس دراديد وحان جعلها أنيقو الصومان إن عمل كيغا لسي قادو أيضا والسبب كله نبي كنت المامي صلوات ربي والسلام عليه معناها إنو صباحي وحوي نبي قال نسي أن وقضي أن صلوات ربي والسلام عليه بشان عدي كاري كارتصون كيدا حبا دي صون هديجي النبي جنوي صلوات ربي والسلام عليه طريقي سيو أرنت لبادي براروجين تمضاني وحيته بيشان مركي أي كلا برانتو هبين كنسك أي تاه وحاد عضه أرين وين أرين عجيبة حق الرب كتمي تبارك وتعالى محايت أرنتاس والنبي يقول صلوات ربي والسلام عليه هبينك بش شعبان أي كلا برنطوي نس نقطو هبينكاس الله باوحو ضالع ذا أدومدي سرمانتو انتو أبورتي أردنبو ضالع ذا مركو ضالع ذا كدب نوحو وقدم بدافع dhammaantood dambigooda waa saamaxa ilaa laba ruux mooyee ruux mushrik ah oo ilaahay iyo adoomadiisa ka dhaxaysiiyay wixii ilaahay gooni u lahaa xaqi alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo kaliyeelidiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo adoomadiisa ka dhaxaysiiyay kaasi ilaahay marna u dambi dhaafi maayo واتن قرآن كتلماميو إن الله لا يغفر أن يشرك به الله مرضافو إن إساقيا أدومدي سوحل وداتي والله يسوق درو إلهي خلق جيسا وحا أقوني دا إن أقول لي حسو والدنب إلهي لقاقلو كأقويوي الدون كان وحو كينا يا إن الدنب قاقا هبيراتين للسامحين آخرنا وحو كينا يا إني جنادو حاران كاتاي نارنا أدكو واريس ساس دراديد مشرك إلهي هبينكا أدن بدافي مايو كاللبادين لو أدن بدافي إني وحويان ومشاحن وعقد اللو وحقدي لي روح حقدي ينعيب قلبك أقوهيا روح مسلمة أسجن الله دافي ماي وعجيب مشرك جرنا كان أورك كتشرنا المسلمين تعالاد أوهيا ما حقدك أوهيا ما أوحنا أقصن محلهم ما جاي صوبت وحويان أفيرسو ماشي اللي جاي السجي مشرك جيب على الزدبردك إسلس جرب دقي ولا فوقي وحن ماشي كفهمينا إلهي تبارك وتعالى الدنبية اللي قال كوا وين وحا كمذا إنه قلبك جريه
oo u jiran yahay dadka ilaahay adoomadiisa ee mu'miniinta ee muslimiinta waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha kaliyana ma ahe munaasabaad fara badan xiqdiga iyo calool xumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qado dambi dhaafkiisa ka qado halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo xuquubadiisa tabaaraka wa tacaala waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi maalin kasta oo khamiisa iyo maalin kasta oo isniin ah acmaasha addoommada kor loo qaadaa ilaahay baa acmaasha loo geeyaa markaasaa ilaahay wuxuu u dambi dhaafaa cid kastoo addoommadiisa ka mid ilaa cid mushrigoo ilaahay iyo addoommadiisa xaqii alle ka dhaxaysiiyey mooye yaa kale nin kalaas isagana aan loo dhaafayninoo maalinkaasi isagana aan khamiista iyo jumcada marka acmaasha la qaaday aan loo dambi dhaafaynin waa kee wuxuu nebigu sal lla lay wasalam waa ruuxa isaga iyo walaalkiisa muslimka ay ka dhaxaysa shaxnaa xiqdi uu ka dhaxeeyo alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala labadan xiqdiga iyo xumaanta isu haya dibdhiga arrinkooda u kaadiya ilaa ay ka soo heshiiyaan meelo badan baad qadi marka lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay waxaa ka mida in qalbigaagu saliim yahay qalbigaagu fayow yahay qalbigaagu xaadhan yahay dadka muslimiinta wada jecesha xumaan aadan qalbiga ugu haynin qalbigaagu inuu u fayow yahay